بسم الله الحمد لله رمضان كريم إن كن سجال بقول سجالي لواتنكي أيا واحد عذي دنيا الرجال بيتك وحكاد عي جارهان مرايكنك أبار آد وبلارن أبارتا مجاعد وحى الإرادة The Great Depression أي الإرادة أبارتا أوصل فتي دقالة بربر يدقالة بابا أبارتا أو كنتي شغلان دودران أبارتا وحا أي كلاو كنتي يعني سعر برر آد وبهسن وحي أبارتا أو كلتو أي كنتي يعني باهي فخري برباب أي كنتي لكن حلقاسي وحا لفيلي يعني لايف اكسبكتنسي أما حلقا لفيلي قفك بني آدم كعمرقيس إنو قارو إنو إيران دونا يا لفيلي لكن تا عكس جدي بنقطي تا عكس جدي بنقطي dabeetana waa la isweydiiyey oo analyse badan baa la sameeyey oo baaritaano badan baa la sameeyey baaritaanadii la sameeyey waxa ka soo dhex baxay arrin cajiib ah ka soo dhex baxay yani waxa dhacday xilligaas maadaama ay jirtay abaar fara badan iyo dhaqaale xumo dadku in fara badan oo kamida wax badan maynan cunayn ama cunto fara badan oo la cunamaynan oo xilliga dabeetana waxa la yiri يعني waxa keenay magaranaysa inuu maxalla life expect ama qofka xilliga la filayo inuu cumrigiisa noqdo inuu kordho ay noqotay waliba 5 sano ilaa 6 sano ay kordhay taasi marka waxa lagu sababay oo sabab looga dhigay inay jirtay magaranaysa dad xilli fara badan ee dadku Soomaaliyeed inay jirtay xilli fara badan ee dadka Soomaaliyeed inaan jirin wax la cuno xilliga cajiib dabeetana waxa jirtay يعني جامعة fara badan oo Mareykanka UK Japan iyo meelo kale dunida kamida ay ka sameeyeen Ramadaanka in la soomo ama in la soomo macnaha jirka u soo kordhinayo yani waxa ogaadeen jirka inuu faa'iidooyin badan u soo kordhinayo xitaa uu dheeraanayo cumriga qofka bani aadamka ahi ama longevity wax la yiraahdo inuu dheeraanayo cumriga qofka bani aadamka ahi in sidoo kale waxa jirtay 1917 askari German oo la yiraahdo Otto Punger la yiraahdo Otto Punger ay la yiraahdo ayaa waxa dhacday waxa ku dhacay cudurka la yiraahdo arthritis baa ku dhacday yani waa riix yani lafaha iyo xubnaha meelaha iska galgalaan ayaa ku dhacay dabeetana wuxuu noqday xeer wuxuu gaaray yani inuu handicap noqdo oo disable noqdo oo qofkii bisocan kari waayay oo dhaqaaqi kari waayay noqotay dabeetana dhaqaatiir fara badan buu u tagay waxa lagu yiri magarasna wax xal lama hayo laakiin waxa lagu yiri waa inaa soontaa dabeetana wuxuu bilaabay inuu soomo 19 maalin markii uu soomanaa ayaa ninkii handicapka oo dhaqaaqi kari weysanaa ayaa hal mar buu magarasada ninkii dhaqaaqay u socdayba dabeetana cajiib noqotay arinkii markaas wuxuu go'aansaday inuu bilaabo meel yaraas inuu furo meel yaraas center therapeutic fasting يعني dadka lagu daaweeyo ama lagu cilaajo dadka lagu cilaajo inay soomaan laakiin dhamaan dadka ramadaanka wax ku cilaaja ama inay soomaan dadka wax ku cilaajiya dhamaantood waxay yiraahdeen way fududahay inaad soonto laakiin qofka caaqilka ahi qofka xakiimka ahi waa qofka garanaya sida loo furo ramadaanka yani xilliga uu sooman yahay qofka waa sida loo furo garanaya وقفك أكسد رمضان كيسا لو أفر قرانيا سببتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاجتي يعني حليه وحاجتي recommendation يعني قابك لو أفريه ويحن ليه حبض يرو تمرة ما دور حبض تمرة انت إن يرو بيه انت لعبتو دباتنا مغرب كاغا سودكو آير دباتنا هدو تعنتاد يراء ذاك عن لما أقول أما لما باهن أما جيرك قصاري أسو كردينيسا إنا أدقو مانتو دن أصومنا وجيركي أديار سنين فيسيكالي أو جيركي أديار سنين إنها هالمرة cunto fara badan jirkii kaga naxisa waxa ogsoonahay rag lama kala yiraahdo yani sumo wrestles waa ciyaar Jabaanka laga ciyaaro yani dad aad u balbalaaran weeyaan way iscirinayaan way isriixayaan ma garasade way sidaas lagu kala adkaanaya waxay sameeyaan yani aad u balbalaaran yihiin waxay sameeyaan in badan bay soomaan dabeetana marka in badan soomaan ayaa hal mar bay jirkii wax kaga naxinayaan يعني cunto fara badan bay kaga naxinayaan jirka hal mar ma garasane dabeetana sida miisaankoodii uu ku kordhaya ma garasane
إلهي سبحانه وتعالى حكمة يعني إن بدن waxa maqli jiray ilaa inoo sheegay Ilaahay wuxuu doonayaa xigmada Ramadaanka uu ka leeyahay waxa weeyaan kaliya in dadka fara badan gaajada wax lanaga baro arinka ma aha xigmada Ilaahay uu Ramadaanka u sameeyay ama bishan Ramadaanka uu keenay waxa weeyaan in jirka bani aadamka faa'iidooyin badan ugu jirto inuu jirki iscusboonaysiiyo inuu jirki magaranaysa dib isku habeeyo inuu jirki bani aadamka jir kale u noqdo magaranaysa si caafimaadiyan maanta wax fara badan baa la ogaaday waxa ogsoonaa liverka ama beerka waxa ogsoonahay inuu qashinka iyo toxinka uu ka saaro sidoo kale magaranaysa kidniga inuu ka saaro magaranaysa qashinka inuu ka saaro jirka waxa ogsoonahay difaaca jirka bani aadamka uu leeyahay uu kordhaya xilligaasi sidoo kale yani cudurro fara badan sida cholesterolka yani triglyceridka yani all types oo magaranaysa dufana ee jirka bani aadamka gala xilliga way ka yaraanayaan way ka baxayaan qof dadka burburan ama miisaankoodii magaranaysa uu dhinmaya difaaca jirka bani aadamka uu kordhaya sidoo kale xitaa neurodegenerative disease like Parkinson xayawaanada maskaxda ku dhaca yani dhimirka ku dhaca neerfaha ku dhaca xitaa way yaraanayaan oo sida Parkinson ama dementia way yaraanayaan magaranaysa even Parkinsonism xitaa way yaraanayaan sidoo kale Ilaahay marka wuxuu ka sidoo kale waxa jirta xayawaanka la yiraahdo yani biyanka ama biyad la yiraahdo aad arkayso sawirkiisa aad arkayso xayawaanka hadii la cala si accident uu ku cuno sun wuxuu sameeyaa uu sooma dabeetana in badan buu qatanaada dabeetana sunta way ka baxdaa xadiis nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu yiri muxuu leeyahay qala sallallahu alayhi wasallam ma mala ibnu adam وعاء شرا من بطن امه يعني بني ادم كما جرت ميل او بوخيو او كغا دب بدن كغا شر بدن علوشيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو ليهي يعني بحسب ابن ادم يعني بني ادم waxa ku filan laqaymaat yani in yar qofka bani aadamka uu cuno sidoo magaarada noloshiisa maalmeed uu xiisay energy uga helo noloshiisa maalmeed u qabsan karayo hadii ay taa ay dhicin yani wuxuu leeyahay thuluth yani 1/3 magaarasani saddex markii calooshi loo qeybiyo qayb cuntada ku shub uu leeyahay qaybna waxa ku cuntaa magaarada biyaha ku shub qaybna waxa ugu tala gashaa inaad ku neefsato waxa idin leeyahay mar kale Ramadaan Kariim hadii aad channelkan ku cusub tahay oo aad doonayso magaarada inaad kubciso fikirkaaga iyo aragtidaada iyo wacyigaaga iyo garaadkaaga waxaad u baahan tahay inaad channelkan subscribe garayso hadii aad isleedahay asxaabtaada waxbay ka faa'iideeyana ayadana waa la wadaagi doontaa mar kale waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim Ilaahay naga dhigo kuwa bisha Ramadaan ka faa'iideysta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.